Assalaamu calaykum asxaabta qaaliga waa idin wada salaam meel kastoo adduunka joogtaan. Saaka waa subax isniin waxaan ku waabarisanaa khayr iyo bashbash iyo barwaaqo. Adigan waxaan idin rajeynaa sidoo kale in caafimaad qabtaan ayaan rajeynaa. Saaka waa subax isniin marka waxaan boobsiinayaa quraac yar oo iska fudud oo maasha Allah tabaaraka Allah mishaari ayaan waxaan u boobsiinayaa wiilka yar oo aan rabaa inaan xanaanada geeyo insha Allah. Mishaarida waxaan kusoo kariyay biyo iyo wax yar oo cusbo iyo wax yar oo sokorta kaman badan iyo subag yar ayaan ugu daray maadaama cunug yar aan siinayo. Saas ayaan kusoo dhimay wax yar caano ayaan kor kaga shubay iyo yogurt ayaan soo ag dhigay oo aan rabaa in caanaha garoorka inuu cabo insha Allah. Quraacdiisas ayaan ku dhan tahay. Xilli qabow waxaa fiican cunuga quraaca markaas aad kariso oo kulul inaad siiso. Saas ayaan kusoo diyaariyay haddana waxaan isku diyaarinayaa inuu xanaanadiisa geeyo insha Allah. Kadibna waxaan soo aaday suuqa. Meel subax alisay waaye. Subaxii sagaalka subaxnimo wixii ka dambeysay ayaan soo cararay marka waxaan isku dayaa insha Allah inaan boobsiyo adeega bisha oo waxyaabo badan ayaa iga dhadhamaaday marka waan soo raacnay. Sida arkaysaa meesha xabaashida ayaan kor taaganaa hadartaan. Waxaan raadinayaa qorfaan ayaan qorfo kula heelkas ayaan jeclahay insha Allah. Haddana waxaan raadinayaa qorfo oo aan bariiska aan ku darsado qorfo markaan bariiska karsanayo insha Allah. Dukaanka carabka ayaan joogaa. Kadibna adeegayga saas ayaan dhag laba ibir waxaad rabto markaa taqaan saas ayaan kusoo dhameysanayaa. Bacda weyn u qumbo waaye waxyaabaha macmacaanka markaan sameynayo ugu talagalay insha Allah. Digirteena cambuulada kama marin xilli qabow ayaa hadda la galayaa ma fahamtay habeenada qaar in lagu torto way wanaagsan tahay cambuulo kuleyl iyo cambuulo iyo bariis ama cambuulo iyo galey. Waan soo orday waxaan imaaday dukaankii weynaa oo Ikamakiska haddana waxaan rabaa in adeeg soo boobsiino insha Allah. Waxa ila socdo saaxiibkay marka waxaan sameynaynaa shaqo oo sii socda marka waxaan sameynaynaa insha Allah in adeega soo boobsiinayo isku dayaa waa mana subax cunuga xanaanada markii aan geystay ayaan isa soo raacnay waan dhaanay dhag adeeg ka soo siistay insha Allah waa la arki doonaa. Waxyaabo badan ma duubin waa ka gaari waaye waan boobsiinayay markii ay ilmo yar xanaana geysato cunug kale yarna haysto iska adag tahay faanteen inaan suuq maadada ku soo daahdo saacada yar oo kooban ayaan haystaa. Marka adeegay ayaan isku dayaa waxyaabaha dhan inaan soo dhameeyo. Saas ayaan ku soo dhameeyay dhammaan oo soo adeegtay bacayaasha ayaan ku soo gurtay adeega. Haddana waxaan u socdaa farmashiya oo aan rabaa waxyaabaha daawooyinka ilmaha loogu talagalo oo haddii qandho ka qabato habeenkii oo kaleeto waxyaabaha adiga ayaan ka soo iibsanaa insha Allah oo iga dhadhamaaday aan ugu talagalay habeenkii oo kaleeto xilli dambe markii ay tahay haddii ay waxyaabaha soo boodaan oo kaleeto. Waan soo haaday guriga ayaan check soo dhahan hadda guriga ayaan imaaday adeeg saas ayaan ku soo baxay waxaas bacaan xariisi ka rabaan. Marka hadda waxaan ku guray fridge caanihii wixii dhan cabitaankii qudaarta kulli waan ku soo wada xareeyay sida arkaysan. Marka waa iska adagta hawshu adagta aan fahanteen. Xanaanada ayaan waxaan rabaa cunuga inaan ka doono labada duhurnimo marka insha Allah intaan la gaarin ka hor ayaan waxaan rabaa wixii adeeg oo dhan inaan kala xareeyo gacanta fududeeyo oo dhag markaan ka dhigo fridge wax dhan waxyaabaha iga dhalaalayo dhan inaan kala xareeyo. Marka si arkaysa halkaas ayaa ukunta ku soo wada gurtay labadaas caag oo buuxda ayaan ka soo buuxsaday. Marka ukunta half ka soo hartay marka waxaan sameyn doonaa insha Allah meel yar ayaan ku shubanaa half kaas kaleeto doolshay ama wax markaas sameysana ayaan ku sameysanaa. Marka meeshan waxaan soo diyaariyay wixii adeeg ahay baasto buro sokor soor hadii bariis hadii mishaarida kulli wixii dhalooyinka ku soo shuudi lahaay oo dhan aan soo buuxsaday dhalooyinkii ayaan ku soo wada diyaarsanaa. Way dhalooyinka wixii ka saacidayaan adeega in aad aragto wixii ka dhamaaday iyo wixii ku yaala markaas si aad bishi marka soo adeeganaysa kan ku yaalo wuu ku yaala kan aan ku oolin si aad u soo iibsato ma fahanteen. Marka waxa waaye ma yar hoosh insha Allah marka halkan waxaan ku soo shubanayaa kakao oo waxa waaye shukulaato kakao waxa waaye shukulaato camal waxa waaye lagu sameysto marka waxyaabaha duwaysa insha Allah. Saas ayaan ku soo wada dhameeyay dhalooyinkeena maasha Allah tabaaraka Allah ayaan ka soo wada dhigay. Haddana waxaan ku soo wada guray qaanadooda ayaan ku soo wada xareeyay saas ayaan u soo saftay. Marka waxaan inta doonaa insha Allah wixii oo iga soo hareen oo dhan oo kartoomo ku jiray rootiyo baasto wixii kartoon loogu talagalay iyo waxyaabaha halfka saas ayaan afka ugu wada xirtay. Geedas waxaa ka helaysaa afka loogu xirnaa IKEA ama Ika dukaan walba oo lagu gadaa. Ugu dambeyn diyaaradeen halkan ayay ka soo degatay cunuga ayaan xanaanada ka keensaday marka waxaan rabaa
xilli dambe intaysan noqonin inaan boobsiiyo wax yar oo casho ah. Marka waa markii ugu horeysay babydeeda yarta aan u karinayo cunto caadi ah. Waxay gaartay 4 bilood way dhaaftay 5 bilood waaye, laakiin waxaan ugu talgalay cunto yar oo fudud oo khudaar ah, ma rabo waxyaabo culculus inaan siiyo. Cuntada marka waxaan sameynaa khudaar bes ayaan u kari doonaa insha Allah, oo yacni sida arkaysaan bocor iyo waxyaabaha ay karooto, hal xabo toon ah, digirta oo yaryariista oo dhamacsada ah iyo galey ayaan iskugu dardarayaa. Biyo bes ayaan ku karinayaa, kuma karin doono insha Allah wax saliid ah, wax xawaash iyo wax cusbo looma dhaweynayo. waayo ilmaha markay ay yaryihiin keliyadooda yacni keliyahooda waxaas ma xamili karaan cusbo iyo waxyaabaha, mana u fiicna caafimaad ahaan cunuga inta uu yaryahay oo babyga yahay. Marka maadaama ay tahay markii ugu horeysay ee cunto baroobeed doonto, waxaan sameynaa waxyaabaha khudaartaas ayaan iskugu soo karinaa. Waxaan iloobay inaan ku daro baradho markuu aan jarjaray, gadaal dambe ayaan kasoo xasuustay hal xabo baradho ah. Marka waxaan sameyn doonaa waa wada fiiqaa, baaquliga biyo ayaan lasoo dhigtay. Waxaan rabaa cunto yar oo maasha Allah tabaarakallah iyadana yacni dhadhan ay ku baran doonto insha Allah inaan ugu soo tuuro. Ugu dambeyn dabka ayaan soo saartay digsigii, khudaartii dhan ayaan kusoo shubay, hal galaas oo yacni galaas halfkiis oo biyo ayaan ku daray. Marka biyaha dabka waan u gaabi doonaa insha Allah. Waxaan rabaa inay biyahaas bes ay ku bislaadaan, oo yacni wax inaan ka dhigo uumid wax ku bislaaday insha Allah. Ma rabo dabka inaan u dheereeyo. Kadibna waxaan sameynayaa hadda cunto yar oo fudud oo baasta macarooni isku karis ah inay wiilka yar u boobsiiyo. Waxaan la arki doonaa sida kusoo baxayso. Jab basal ah iyo xabad toon ah ayaan halkan kusoo fiiqday dartan. Kadibna waxaan sameyn doonaa digsiga yar ayaan soo qaatay, dabka ayaan soo saartay. Basasha iyo saliid markii aan isku soo daray iyo toonta xabad toon ah ayaan soo hoolay. Kadib waxaan sameynayaa sacab hilib shiishida ayaan ku daray. Yacni wax badan ma karinayo, waxaan rabaa wax yar oo marka uu ku casheeyo cunugayga yarka in aan sameeyo oo baasta yar oo macarooni oo jecel yahay, yacni aad ayuu u jecel yahay baasta markaan u sameynayo. Waa kaga farxi doonaa insha Allah. Kadib waxaan sameynayaa inta basasha iyo hilib shiishidka iyo xabada toonta ayaa si fiican isku dhex gelinaya. Markaan shiilo waxaan soo qabsanayaa xawaajiyada aan ku carfi lahay, waa xawaaji dhudhub iyo cusbo iyo waxaan soo qaadanayaa insha Allah xawaash kaari. Marka intaa ayaan ku darayaa, ma ka badinayo. Wax yar oo far iyo suula sida arkaysaan waa ka arkaysaan yacni inta aan ku darayo. Kadib marka intaan ku carfiyo si fiican ayaan isku dhex geli doonaa insha Allah. Marka baasta dhib badan maaha, waa baasta macarooni yariista ee ciyaalka ay jecel yihiin. Intaan markaan isku daro oo dhameeyo ayaa isla arki doonaa baasta sida kusoo baxdo. Marka basasha wuu neceb yahay, basasha waxaan isku dayaa in aan si fiican u shiilo si yacni indhaha uga dhimato. Waxaan ku daray yaanyo burbur waan ku dari karay, laakiin yaanyadan kaleeto oo baakada u furan ayaa ii taalay. Kadib markaa suugada halkaan uga soo baxnay, waxaan u imaaday khudaartii dabka aan saartay oo babyda yarta aan ugu talagalay oo si fiican isku dhex gashay, oo laakiin weli waxay u dhiman yihiin. Marka waxaan sameynaa weli yacni daboolka ayaan u dhoodi doonaa, yacni daboolkeeda ayaan saarayaa muddo 40 daqiiqo ayaan sugaa dabka u gaabsan yahay. Labada gacmood waxaa waaye labada dhinac ay ka shaqeynayaan, fahamtay. Kadib yaanyada ayaa soo burburiyay, suugadii iyo hilibkii iyo yaanyadii iyo basasha iyo wixii dhan waa is dhex galeen. Markaas aan u jajabiyay wax yar. Kadib waxaan isku dayaa baasta macaroonidii oo yariista ahayd, yar waaye 3 minute bisa loogu talagalay baastadan. Yacni biyo badan ma qaadanayso, dabka wax badan ma ku saarnaanayso. Biyo ayaan soo karkarsaday oo ku daray. Wax yar ayaan ka dulmarinayaa biyaha, waayo haddaan biyaha ka badiyo waxay noqonaysaa baasta soor ah. Marka ma rabo wax yar oo waxaan rabaa furfur inay noqoto insha Allah. Ugu dambeyn babyda yareed cuntadeeda waa diyaar. Sida arkaysaa fargeeto ayaan ku buroobaynayaa inay basasha in kaleeto karootadii baradhadii wixii dhan way isku dhantahay, ma fahanteen.
kadib waxaan rabaa inaan shiido mishiinka inaan soo qaato oo dheerka oo sas yacni juruq lagu siinayay. Haddii aad haysato makiinada cabitaanka oo kale waa ku shiidan kartaa, laakiin makiinada cabitaanka rafaadkeeda iyo dhaqitaankeeda waxaan ka doorbida tan. Laakiin taa oo kale waa ku shiidan kartaa, laakiin tan ayaa ka fudud gacanta lagu qabsanayo. Sidaa ayaan daqiiq kaga soo dhigay wax yar oo murux iyo waxba ma laha. Waxaan soo qaatay waxaan hadda u diyaarinayaa marka cuntada yareed ee aan shiiday oo bibiga aan ku barowey rabo. 3 qaando bis ayaan rabaa inaan ku baroweeyo waayo wax badan ma qaadan karo cunuga markii cuntada ay ku cusub tahay. Koobkaas yar ayaan ugu soo shubay, qaando ayaan ku soo ritay ilaa ay ka qaboobis halkaas ayaan iska dhigaa. Kadibna waxaa waaye waa la baroweyn doonaa insha Allah. Cuntada hooyada inay jeclaa doonto in kala maanta la arkaa. Ugu dambeynna baastada saas ayaa ku soo baxday way noo gursatay. Haddana waxaan ku daray 1 qaando oo yacni caanaha fadhiyo oo loogu talagalay cuntada. Ma ka badinaya caanaha waayo caanaha hadaa ka badiso cuntada waxay noqonaysaa hadhow qaleel aman ayay ka noqonaysaa. Mana rabo inay noqoto cunto qalalan. Waxaan rabaa cunto yar oo qoyan oo baastada markii inta aan ku soo daro wax yar oo kabsar caleen oo si yar u soo jaray ayaan dusha kaga soo daray. 5 minute ayaan ku huuri doonaa kadibna waan u diyaarin doonaa. Baastada waxay noqotay baasto qoyaan leh oo yacni cunuga oo aan dhibin la qisteeda una qalalayn aan ka wadaa baasta fudud oo yacni jilicsan ayay u noqotay. Saas arkaysan ayaan ku soo diyaari doonaa insha Allah. Cashadiisa way dhan tahay oo jeclaa doona yacni cunto yar oo fudud waaye. Fiidiyowga haddii inta nala soo gaarto muuqaalka waxaan ka codsanayaa fiidiyowga ii share garay. Haddii uu ku qanciyana waxaan ka codsanayaa insha Allah inaad fiidiyowga ila gareyso like iga iloobin oo hana iga baqiilina insha Allah. Waa mahadsantiin dhammaantiin walaalahay aan jeclahay. Fiidiyowgan xiga insha Allah bash barwaaqo idin rajayna.